صار مرها هويا مرها إلهي مرها كنت أقول شيء وعمامنا مرها ومستقبلا مرها ذي البورمة دولتنا وورنا هاي سنة ما جت كيف كنت أنا سأسوق يعني أنت سأسوق مرها كيف مساكين سأسوق بيا الناس ويا وإلهي ترتقى أنا قاعد كفتان تدوعنون يا وحوي دليل بعد عالبورم ومحاكم الدرق بيكسر وإحنا لسه قلنا ما جبتوا الدولة كلامها كلام ولا قرمنا كان لا يبحث لو إحنا لسه قلنا هدي إحنا جبتها ما دبعتنا نقول على بويد ملهين قرمد ملهين قرقار ملهين دولة ملهين درب ملهين مركب وحن دورنا عين محاكم هذا لنا قاعد كفتوا لنا نحاويه الدوينة ولا شو الذي يتابعني يقدر انتوا اللي تفكروا تريها قيبتني قرن الدولة السوشيال سايكلية مرة واحد عطسنا ربهم بحسين لذا بحسين قرن يبنتنا واحد لها وقبرنا دوب قاعد منه يهيش أنا guri maanta ku gubtay xaafada Shariska Xur ee magaalada Boorama kamid ah guriga soo cid baqtisay way oday curyaanina oo ku dhax dhintay halkaas oo dadweynaha xaafadu ay gurmada soo galeen qasabadii iyo tuubooyinkii soo jiidanay ciidan ku baqtinay iyadoo dawladii iyo mas'uuliyiintii gobolka iyo degmada cid itmaad la waayay mar dambe oo dadkii ay gabagabo oo meetii laga soo saaray oo carruurtii laga qoray ayay boolisku ugu yimaadeen halkaana maayarkii iyo barasaabkii midna kuma arkin wax kale oo sheegay waxa kale dadku aad iyo aad uga caroodeen afrasha ka hor ayaa ardayda guriga laga duuliyo odaga curyaanka isagoo oo waxba haysan halkan nabaad cid baqtay soo gaadhay dabdamisana loo waayay halkan odagu ku dhaxdantay carruurtana darqal kaga qoray darrada haysata magaalada Boorama iyo deegaanada ku xeeran ayaa waxa kamid ah hawlaha adeegga bulshada oo dhan oo ka maqan iyadoo ay dadku maanta halkan cilmiisiisayeen oo arkaysay ilaa aqalkiisida maanta markii la xaaday ee aqalkii oo dhan burburay laga xaaday meedkina la qaaday dadweynuhu cilmiisiisayeen oo lahayn dawlad ma lihin cidna ma lihin ka dadweynaha gobolkan awdal u dhashay waxa la wacyigelin gudiga dibadda inay arrimaha asaasiga u soo qabtaan dadku sida gawaarida dibdamiska iyo waxyaalo kale baahida dadka loo maqan cid lagu hadlayna ma jirto waxana nin walba dadkiisa ahayn dadku waa inay dadku hoostooda darooga ka dhistaan iyo horumarkooda waxaan afar guriyaan u dhaxeeyay gurigan gubtay waxaan ku jiray dad ugu horeeyay saaka halkaas sida toorra ugu shaqeynay inta ciidan noo iman alla tamar aan ugu weynay halkaan ka guurinay markaasaan sheengada iyo wixii oo dhan kala guurinay ardayda dugsiga umayad dhigata oo iyaguna la soo fasaxay caawimo xoog la gaarsiisay oo halka dabsta miskiin nagala qayb qaadatay mar dambe oo mar ahayn ay mar dambe noo yimaadeen maamulka boolisku oo waxba laga qaban hadaba dadweynuhu waxay aad maanta uga saxanaaqeen sidan dayacnaanta ay odaga curyaankiina ugu dhax dhintay oo cid ka qaaday uu waayay gabadhay guriga galeysay oo odagani inankiisu qabeena waxa ku maqnaa suuq oo adeeg baa u doontay carruurtiina dadkii jaarka ka guray mar dambe guriga uu lacayon baa la arkay ee odaga waa la badbaadin karay markii dambe si lagu badbaadiyay ayaa la waayay aqaladii kale jaarka dad ku qabsanay haddana dib loo daad gureeyay halka maanta masiibo xoog leh ka dhacday magaalada Boorama waxay aad tacsanayaan odaga dhintay inuu Ilaahay u naxariisto cid dambana si loo badbaadin karo maamulkuna caro xoog leh ay dadku ka muujiyeen iyadoo warba inay ka hadla hadada aynan bixin wali kolii maamulka dowladda hoose iyo gobolka oo in meeshii xitaa soo arag wana kala hadala